السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن دابديال halkan waa warbaahinta VOS xarunta dhexe magaalada Muqdisho waana waqtiga ay nooga barateen inaan hawada idin soo marsiino waruuxi caalamka daafiisa inaga soo gaaray inta uu warka hawada ka baxay anigoo Sharmaako Xuseen ayaa tabinta diyaar u ah qodobada waxa qayb ka ah guddiga doorashooyinka qaranka iyo soodimaha Soomaaliya oo magaalada Hobyo ka bilaabay diiwaangelinta dadweynaha magaaladaasi kulan looga hadlayay amniga iyo la dagaalanka maandooriyaha oo lagu qabtay magaalada Buuhoodle shacab ka careysan diidmada lacagta shilinka Soomaaliga oo baydhabo ka sameeyay dibadbaxyo maamulka Jubbaland waxay deeq raashin ay gaarsiiyeen dad danyar ah oo ku sugnaa daafaha magaaladaas wararka Soomaalida ka baxsan daawadayaal waxa qayb ka ah ururka Xisbullah oo sheegay in ay difaac adag ugu jiraan haddii lagu soo xadgudbo isla markaana la jibiyo xabad joojinti iyo dadka degan waqooyiga Israa'iil oo iyaguna markaa sheegay in lagu qiyaamay xabad joojinti Lebanon iyo Israa'iil la xamartay intaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah hordhac warke u diyaar garow warka oo dhameystiran fulan looga hadlayay amniga iyo la dagaalanka maandooriyaha ayaa waxa lagu qabtay magaalada Buuhoodle iyagoo ay ka soo qayb galeen madaxda amniga iyo sidoo kale maamulka degmadaasi waryahayaga Cabdullaahi Maxamed Sheekdoon ayaa inoo faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid looga hadlayo dhibaatada khamriga iyo maandooriyaha kale oo leeyahay kaasi oo ka dhacay degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay kulankaasi waxgaradka aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka saraakiisha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulanka diiradda lagu saaray intuu socday sida looga hortagi karo qataraha uu leeyahay waxyaabaha maanka dooriye ee ku soo badanayo degmada Buuhoodle odayaasha dhaqanka ee kulankaasi ka hadlay ayaa isla qaatay muhiimadda uu leeyahay in laga hortago waxyaabaha maanka dooriye dhibaatada xoog ku haya degmada Buuhoodle waxa oo loo baahan yahay reerku khamriilihiisa inuu soo qabto oo dhaqan celin ku sameeyo haddii uu soo qaban waayo ciidanka inuu u fasaxo oo ciidanku soo qabto oo ay xukumaan oo aan cidi ka daba tegin haddii howlgalka uu ku dhinto ama ku dhaawacmo in aan cidna loo raacin qodobkaana in la ansixiyo baa loo baahan yahay war waxyaalahaasaynu isweydiinaynaa meesha loo maray annagaa naqaane na weydiiya annagaa soo jabnay na weydiiya annaga inaan ciidanka sheegin inaan ciidanka howlgalka galay hebel baan aan la sheegin annaga na weydiiya meesha loo maro sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isweydiiyo daawadu meeshay ku jirto in la isweydiiyo xadhigu ka xidhmayo waxaan leenahay si guud iyo talo guud iyo midnimo guud qofka wax xumaynaya marka hore aan u midowno bilayskana waxaa la yidhi mandate bay doonayaan waxa weeye markii xilka lagu saarayo caaqil laguguma yeedhine mandate-ka dee dawlad baa ku siisay laakiin cuqaasha dee la tashi baad ku leedahay oo waa madaxdii iyo dhaqankaagii weeye idinkuna dib ha eeginne dee adeegto waxaad u magacaabantihiin xidigaha u xidhan tihiin qabsadaan leeyahay oo hadalkii ku soo urunaya war dawladda aan la shaqayno mandate-kana aan siino ha la soo celiyo xasilintii booliskuna ha shaqeeyo runna aynu isu sheegno taasina waa ta xigta waxaan leeyahay cuqaasha la eedaynayo cuqaashu kiis ma leh cuqaashu boolisna maaha militarina maaha cuqaalay haddii aynaan innagu kiis lahayn dawladda aynu u fasaxno inay wax qabato ilaan dawlad baynu dhisannaye waa la garanayaa dadka khamriga keena caaqilkiisina waa la garanayaa isagana waa la garanaya sidoo kale saraakiisha goobtaasi ka hadlay ayaa iyagana odayaasha ka codsaday in garab lagu siiyo sidii looga qaban lahaa waxyaabaha maanka dooriye dadka keena magaaladaasi haddii aynu xaqiiqo sheegaynana ma aynaan qaban kari waayin laakiin qofku muxuu ka baqayaa oo ka waabanaya waa carabka lagu soo celceliyey eedayn la isku celceliyey
in wax la isku garaabaana waa run waa wax wacan weeye in wax la isku garaabaa wacan haddaanu annagu xoogii waqooyi barinahay ama boolis aanu noqonno ama daraawiish aanu noqonno ama xasilin aanu noqonne hal qodob baan wax kaga warwareegaynaa halka qodob baan wax kaga warwareegaynaana waxaa weeye intii ay saraakiishii iga horraysay ka hadashay oo ah kii aan qaban kari waayo isagoo caafimaad qaba aan qaban kari waayo ee aan wax u geysto in la yidhaahdo iska dulqa iyo reer buuhoodlow anigu waxaan wax qaban karaa ka wax la rabaa inuu qabto ee amniga sugo ee wax qabto ee wax dile ee wax laayo waa aniga waxaan u baahnaa ka dhibaatada iyo fidmada wadda caaqil adaan kaa rabaa inaad ii saxeexdo inaadan dhibashadiisa dhaawisa midna bay weydiinayn berrito anaa caawa kow ka dhigaya ku ballanqaadayo qabqabanaya ii saxeex waxaan rabaa in aad saxeexdaan ka wax dhibaya nin walowba ee aad magta ka bixinayso qoriga la daba taagan tahay aaska la daba taagan tahay annagaa qabanayna annagaa laynayna ka ciidanka laydinma raaco anaa dawladda wakiilga ah ninka askariga ah ee ama dhinta ama dhaawacma in xaqiisana ay dawladdu bixiso ka dhaawacana ay dawladdu dhaawiciso ka ciidanka ah hawlgalka wax ku noqda anaa wakiilga mas'uulka ah bay u darayd habeenkii xalay ahaa magaalada lagama seexan weliba goobo gaara baa dadkaasu fadhiisan jireen ama ay joogi jireen xalay afarta koone ee magaaladana way joogeen labada cusbitaal ee magaalada u shaqeeyana labadaba xalay waa loo soo dhacay weliba rag ilmo hebelaa u soo dhacay oo la garanayo guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa iyagu waxa ay maalmihii ugu dambeeyey gaareen islamarkaana ay diiwaangelinta ka bilaabeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka koonfur galbeed waxay ka mid ahayd dowlad goboleedkii markaasi dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidankeedu la wareegeen hase ahaatee guddiga doorashooyinka ayaa dhowaan gaaray degmada Xudur oo ka tirsan gobolka Bakoolna waxaa laga bilaabay isdiiwaangelinta dadweynaha sidoo kale Qansax Dheere ayaa qayb ka ah iyo degmooyin hoosta gobolada Baay iyo Bakool oo ka tirsan koonfur galbeed guddiga doorashooyinka ayaana gaaray isdiiwaangelintii ayaa si rasmi ah ugu bilaabatay sidoo kale maamul goboleedka Galmudug ayaa iyana qayb ka ah halka guddiga doorashooyinka ayagu ay dhowaan gaareen islamarkaana laga bilaabay isdiiwaangelinta dadweynaha guddiga doorashooyinka heer qaran waxa ay markaasi si rasmi ah ugu bilaabeen maanta magaalada Hobyo isdiiwaangelinta dadweynaha iyadoo dhowaan gobolka Banaadir laga diiday lacagta shilinka Soomaaliga islamarkaana maamulka gobolka Banaadir uu amray in la qaato lacagta shilinka Soomaaliga ayaa maanta shacabka ku dhaqan gobolka Baay gaar ahaan magaalada Baydhabo waxa ay sameeyeen isu soo bax ay ku diidan yihiin in markaasi ganacsatada ay ku diidaan lacagta shilinka Soomaaliga waxayna dalbadeen in lacagta shilinka Soomaaliga loo fasaxo si ay ugu adeegtaan wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Sheekdoon hayno dhameystiro shacabka careysan lacagta shilin Soomaaliga ee la diiday ayaa barnaamij xooggan waxa ay ka dhigeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaasi oo iskugu soo baxeen barxadda weyn ee magaaladaasi ciidamada ammaanka oo goobta soo gaaray ayaa xakameeyay barnaamijkaasi inuu rabshado isku bedelo waxaana halkaasi kula hadlay shacabkii barnaamijayay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Baay Sadiiq Aadan Doodisho isagoona sheegay in barnaamij nabadaysan ay diidanayn dawladda balse la diidan yahay barnaamijyada rabshadaha wato waxa uuna ka dhageystay cabashadii ay wateen isagoo ballan qaaday in aysan dhici doonin in lacagta shilin Soomaaliga magaalada Baydhabo aysan ka joogsan islamarkaana sideeda loo isticmaali doono isagoona sheegay in cabashadooda uu gudbi doono maamulka si wax looga qabto hase yeeshee shacabka ayuu ku booriyey inay joojiyaan barnaamijyada rabshadaha wata ee saameyn kara xarumaha ganacsi ee magaaladaasi adawaa kan taliyaha ciidanka booliiska gobolka Baay Sadiiq Aadan Doodisho oo halkaasi kula hadlaya kumanaan shacabkii halkaasi iskugu soo baxay ka cabanaya diidmada lacagta shilin Soomaaliga isleeyahayne banaan baxa xaqa in la tiin shucuurtiin rabitaankiin ka hadalan xaqa in la tiin uriina waajibkeena may buu amnigii sugnaan amniga ganacsatada la suga haan shirkado la suga haan dadka danyarta la suga uni waajibaana saaran ma
isina waajibaasin ku saari amniga kula sagaytaan diyaar mingiidina waayahay tabashadiin dheegni cabashadiin dheegni dhibkiina dhibkaanu wala cabashaysun qabtaan dheegni kooxuna wala dhibaatay sheegada haytaan walisii ku qabaane ganacsatida la weere arday yoona dooqaya dhibaatada la joogo dhigoonsade tabashadiina iyo dhibaatadiina dadkiina danyarta oo isin hadal haytaan dheegni madaxda dawladda deersiyaanan sariflahaadoy ganacsatahaadoy xawlaadahaadoy wali dadkun dhibaatada haysata laha ku dulqaado oo dhibaatadu laanka reebo yaa waajibninga maamulka Jubbaland waxay deeq raashin ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka danyarta ee ku sugan daafaha magaaladaasi markale Cabdullaahi Maxamed Sheekdoon wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka ee maamulka Jubbaland ayaa deeq raashin gaarsiisay deegaanada xeebta ah ee maamulkaasi halkaasi oo ay ku sugan yihiin dad shacab ah oo saameeyay abaarta ku dhafatay deegaanadaasi deeqda raashinka ayaa waxaa soo gaarsiiyay maamulkaasi dowladda Kuwait si loo gargaaro dadka ay saameysay abaaraha ku dhafatay geeyiga Soomaalida gaar ahaan deegaanadaasi wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in gargaarkani uu qayb ka yahay dadaalada loogu jiro sidii loo samatay bixin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha maanta waxaanu joognaa xeebaha deegaanka degmada Kismaayo oo aan ka qaybinayno deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka ay saameysay abaaruhu deegaanada ku nool deeqdaas oo ka kooban bariis iyo bur sonkor saliid caano iyo timir isugu jirta oo runtii wax badan ka tari doonta baahida iyo duruufta dadka eeriyada deegaanada ku nool waxaa ka faa'iideysanaya dad gaaraya 700 oo qoys oo ku nool degmada Kismaayo khaasatan deegaanada dhaca xeebta area Istanbul iyo Xabal Jirri iyo deegaanada hoos yimaada tuulooyinkaas dadka laga soo qoray waa dadkii mudnaa runtii waxa weeye tabaaleysnaa in kamid ah waa ka badan yihiin dadka deegaanada ku nool inta dad badan baa ku nool waa deegaanada ugu badan ee degmada Kismaayo dadku ay ku nool yihiin laakiin maanta nasiib waxa uu helay intan inay dadkaasi ay ka faa'iideystaan inta kale ee dhiman duruuftu iyo ay baahidu haysato iyagana insha Allah tacaala oo u maqanahay inay wax gaaraan waana ka shaqeyn doonaa hadii Alla idmo deeqdani waxaa ugu deeqay dadka iyo dawladda Jubbaland hay'adda walaalaha nahay ee Kuwait oo ay wakiil u ahayd sharafaysay النجاة الخيرية iyo jamciyadda المنهل الخيرية Soomaaliyeed oo runtii wakiil uga ahaayo implementationka u fulinayay النجاة الخيرية iyo dawladda Kuwait oo ma celinayna dawladda Kuwait ilaahayna waxaan u weydiinaynaa musiibooyinka iyo dhibaatooyinka dhacaya inuu dawladooda iyo dadkooda ku badbaadiyo ajir ka siiyo deeqda ay dadka soo gaarsiiyeen deeqdaas way soo gaadhay dadkii maanta fulinayna waanu mahad celinaynaa dhammaan dawladda Kuwait iyo النجاة الخيرية iyo jamciyadda منهل الخيرية wada shaqeynta ka wasaaradahan runtii barnaamijkan ka wada shaqeynay xilligii loogu baahi badnaa oo deegaanadan xeebaha Kismaayo oo wali roob ku helin oo duruuftii abaartu wali la daala dhacaya maanta inay intan helaan waa runtii wax weyn bay noqotay marka aad baan ugu faraxsanahay saaxiibada hawshan ka wada shaqeynayna waxaan mar labaad ugu baaqaynaa oo codsanaynaa baahidu inta waa ka weyn tahay duruuftu intan waxa way aragteen indhihiina saad ku aragteen weeye dadkaasi wax badan oo gargaar ay u baahan yihiin oo haday raashin noqoto iyo haday biyo noqoto iyo qaybaha kala duwanba baahidu way ka jirtaa waxaan rajaynaynaa inaan kasii wada shaqeyn doono haddii Alla idmo wahagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan warka warbaahinta VOS iminkase wararka caalamka ururka Xisbullah ayaa sheegay in difaac adag ay ugu jiraan haddii markaasi lagu guuldareysto xabad joojinta si ay amar ay siiyaan ciidankooda ururka Xisbullah ayaa sheegay in difaac adag ay ku jiraan ciidankoodana ay u diyaarsan yihiin haddii ay dhacdo in qiyaamo ay sameeyso Israa'iil inta lagu guda jiro xabad joojinta ka socota Lebanon war qoraal oo lagu daawacay barta Telegramka oo ay ku daawaceen koox ay taageerto Iran ayaa ku faahfaahiyay howlgalkooda inta uu socday dagaalka iyagoo sheegay in ay fuliyeen in ka badan 2184 howlgal oo ka dhan ah
Israa'iil inta u dhaxaysay 2 March iyo ilaa 16 Abriil. Xisbullah oo dalal ay ka mid yihiin UK iyo Mareykanka ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso ayaa ku lug lahayn wadahadallada xabad joojinta ah iyadoo Israa'iil ay gorgortan la gashay dowladda Lebanon iyagoo ka falcelinaya wararka xabad joojinta Khamiistii. Xisbullah waxay sheegtay xabad joojin kasta waa in ay noqotaa mid dhameystiran oo ka dhacda dhammaan dhulka Lebanon waana in aanay ogolaan cadowga Israa'iil. Israa'iil waxay ogolaatay xabad joojin ku meel gaar ah oo 10 maalmood ah, laakiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa ku adkeysanaya in ciidamada Israa'iil ay ku sugnaan doonaan aagga ammaanka ee dhulka Lebanon inta ay socoto xabad joojintaasi. وهاجاك داود يا الجودهان أنت سوحة فسوا أفمرنا وروحي عالم كتافيس نجسوا جار ورك أنتوا أبدا كبحياني وشرماك حسين عيا إذن ورميي إذن وكم سنتين داو الشداس أنت ورك حجانكم كل من دونه سيدا إنه بتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.